بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا كسو هذا برنامج كيني إن شاء الله مانت برنامج كيني وحو هادلي دونا عذر كمالاريا دا مركا ugu horeysa malaria waa laba eray oo talyaani ah oo magacan waxa bixiyay takhtar talyaani ah oo la oran jiray Francisco Torti waqti uu magacan bixiyay waxay ahayd qarnigii 18aad. Malaariyadu waxay ku badan tahay wadamada kulaylaha, wadamada kulayl xigeenka, sidoo kale wadamada sub-Sahara Afrika ama wadamada Sahara xigeenka ee Afrika. Malaariyadu waxa sababa Sporozoa gaar ahaan Plasmodium. Waxa ugu weyn ee malaariyada sababta waa Plasmodium. Plasmodium-ku wuxuu kala baxaa ilaa 100 nooc, waxa ugu caansan ilaa 4 nooc. Labada nooc ugu badan ee Soomaaliya laga helana waa Plasmodium falciparum iyo Plasmodium vivax. Calaamadaha lagu garto malaariyada waxaa ka mid ah khandho zaa'id ah, jarees, dhidid, madax xanuun, murqo xanuun, mantag. Habka lagu qaado malaariyada. Malaariyada qofku wuxuu u gudbi karaa ilaa 3 hab. Tan koow oo ah dhiig isku shubid. Qof malaariya qabo hadduu dhiig u shubo qof ka caafimaad qaba malaariya waxaa suuragal ah qofkaas inuu malaariya ku dhacdo. Number 2 xibin isku deeqis. Qof malaariya qaba hadduu xibin siiyo sida beerka oo kale qof caafimaad ka qaba malaariya waxaa suuragal ah qofkaas inay ku dhacdo malaariya. Number 3 hooyada dhalmada. Xilliga ay hooyada dhalayso waxaa suuragal ah xilligaas in ay u gudbiso cunugeeda dhalaanka. Qaabka ay jirka ku gasho malaariyada. Malaariyada kaneecada oo dhan jirka ma wada galayso balse waxaa jiro wax jirka gelinaya oo ah Plasmodium. Plasmodium-kaas ayaa soo qaadayo waxay soo qaadaysaa kaneecada kadib waxay keenaysaa jirka wareegga dhiigga ayuu raacaa. Marka ugu horeyso Plasmodium-kaas wuxuu baabi'inayaa RBC-ga ama unugyada dhiigga cascas ee jirka. Kadib wuxuu sii baabi'inayaa beerka ayuu galayaa kadib jirka oo dhan ayuu ku sii galayaa Plasmodium-kaas kadib qofku waxaa la arkayaa in uu malaariya qabo. Qaabka loogu hortago malaariyada. Marka ugu horeyso isticmaal maro kaneeco. Midda labaad ku xir gurigaaga daaqadaha oo dhan shabaq aan awood u lahayn in ay ka soo gudubto malaariyada. Number 3 isticmaal sunta cayayaanka lagu dilo ama sunta buufiska. Number 4 buufi meelaha biyo fadhiisadka ee u dhow hagagaarka gurigaaga ama biyahaas dhanba ka khalaji. Intaas ayaa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii maanta oo aan ku hadlaynay cudurka malaariyada. Waa mahadsantiin.